هذا هيبة سياسيين سراكيل عسكري مدنيين بقى وسلامتين مناسبة عاوة سينو ودا ogna hay waxa weeyaan xornimadii dhinaca koonfureed iyo Israaciil waqooyi iyo koonfur Soomaali horta marka hore dagaalkii labaad waxa marba intiisa badan marna Talyaaniga qabsaday marna Ingiriis baa qabsaday yalkada mid walba xukun gumaysi buu ahaa waxa Soomaalidu ka faa'iiday waxay ahayd waa la isdhex galay waxa qoobadiiba ayaa burburay inta waxa wehelisay dawladii dagaal ku adkaaday inay yiraadeen sidee la yiraahdaa dalalkii Talyaanigu gumaysan jiray waa markay Ingiriisku soo jeedinayaan aniga halay wada dhibo taasoo ka dhalatay ogaanshaha uu ogaaday inay Soomaalidu rabtay inay israacdo midowdo markaana wasagu badankeeda gacanta ku hayay dawladii kale waa ku diideen laakiin fursad baa dhalatay la oranayay baldadyowga waxa la weydiiyo halkan markii la yimi ayaan darro xusubkii gobolnimadoonka SOL ma taageeri fikradda Ingiriiska bariyihii dambe oo labadii Israaciil ma kuwi kale ay xaalkoodii adkaaday oo aad loo canaanan jiray SOL-kii waxay ku cudur daaran jireen anagu waxaanu isniri afartii dagaalka ku adkaaday inaan kala dooranin saanay hadhowto mid aynaan taageerada midkoodna u waayeen adigu dhibaatooyin kalena waa jirtay على كل حال دولتي مركا أفرتي دولات مركا كل شيء وين أريد الصومالية وصوماليا هذا معناها وكوفر أنتي تليان وجوميسن شري ومقع صوماليا الرسم ما هنا وحلورن شري يونايتد نيشن كويقينين إكس إيطاليان صومالي لان ويكبر كل شيء وين شنو تومنكي سبتمبر 1948 بالغو ورشي يونايتد نيشن United Nations amana ay u qaateen marka trustee bay hayaan amana ay u qaateen Soomaaliya inay iyagu mas'uul ka noqdaan laakiin waxa muddo qaadatay iyo maamulaya dawladda SOL waxay codsatay oo ay doonaysay in afartii dagaalka ku adkaaday wada maamulaan laakiin afartu meesha kaliya ku wada maamul lahaayeen waa United Nations ka dhexdeeda meesha kaliya ka dhaxayn kartay afartooda taasay ahayd in United Nations ka maamulka la geeyo United Nations arintii waa ku dhex jirtaa United Nations waaba adopt garooyay laakiin in maamulka la geeyo qarbiinta diidanayd waxaanay uga diidanaayeen waxa dhashay markaa wixii Cold War-ka la oran jiray waxay diidanaayeen dawladihii galbeedku dalalkii ay gumaysanayeen ama gumaysan jireen intay kari karaan inay yareeyaan doorka uu ku yeelan lahaa Soviet Union marka haddii afartu sayda SOL doonaysay afartii hadii United Nations ka baa loo dhiibi lahaa waxay noqon lahayd in xogayaha guud marka la wareego xogayaha guud wuxuu ka amar qaataa oo dhaqdhaqaaqa United Nations oo dhan la socodsiiyaa golaha amnigana Soviet Union baa fadhiyay oo diidma qayaxan lahaa marka qarbiintu ma rabin inuu door ku yeesho Soomaaliya iyo dalalka kale oo xoroobi doonaba inuu door weyn saa ugu yeesho bay rabin Soviet Union ila had دور واكو يلانا يا United Nations وكمل ياي قولها أمني وكمل ياي لكن وحي ربيان إنانو مدينتا كبضنا إنانو يلانين وحمركا الهوسكي ياي قوليه اللي أورنشي ريس تراستيشيب كامسول أو دلالكي فراكتوريسكاها أو United Nations كو أمانة دا وقاتين كملها مسؤول كأهبا الهوسكي يوانا ساقو قولها أمني قو حباوه كينين هاوش بيساقين شيري شاما عدا لورد أي هاي waxa la isweydiiyaa ama Soomaalida la isweydiiyaa sidii SOL koo diidana sideeba Talyaaniga loogu dhibay Soomaaliya saddex sababood marka ugu horeysa Ingiriis madama la diiday inuu Soomaaliya oo dhan oo midaysan xornimo gaarsiiyo ma aanu rabin mana ogolayn inuu koonfur kaliya xornimo gaarsiiyo midda labaad United Nations ka maamulkiisa lama hoos karo qarbiintii oo golaha amniga u badan baa diidanay midda saddexaad Talyaani ma cid kale oo rabtay oo lahayd ana Soomaali xornimo gaarsiinaya lama helin saddexaas sababood baa markaa suuragal ka dhigtay in Talyaaniga dib loogu dhiibo marka 22 November 1949 baa United Nations u idmadeen Talyaaniga in uu Soomaali xornimo gaarsiiyo ka soo tag markaa 10 sano waa dhamaatay xornimada habeenkii la qaadanayay Soomaali xornimadeeda waxay ka qaadatay koonfur khusuusan waxay ka qaadatay United Nations gumaysi kama qaadan laakiin Talyaani baa u maamulayay United Nations marka dal markuu xornimo qaadanayo xornimadu waxay bilaabanaysaa 12 barka habeenimo ama 6 saac
oo maanta bilmatala aynu hadda maanta joogno weli waxaynu ku jirnaa soddonkii 6 saac markay gaadhana waxay wareegaysaa bishii toddobaad kowdeedii marka ninka maamulaya dal shisheeye United Nations kii u joogayba ha ahaadee waxa la yiraahdaa ma sugo inta calankii uu metelayay la laabayo marka talyaanigii maamulaha ahaa oo United Nations iyo dawladda talyaaniga baa wakiilka ka ahaa 10 saac ama 4tii galabnimo muu ka dhoofay Muqdisho bishii 30kii June 1960kii 12kii markay saacadu gaadhay waxa dhacday agreementkii ay kala saxeexdeen United Nations iyo talyaanigu oo 10 ku ekaatay halka waxa la dhacday iyana amaanadii United Nations isa siiyeen ay Soomaaliya xilkeeda ku aqbaleen 12kii markay miri dhaaftay gudoomiyihii baarlamaanka aadan cabdulle waxa la yiraahdaa tasuurku odhanayo marka qabya ahaayo la hayay awoodda madaxweynaha waxa leh ra'iisul baarlamaanka hadaan madaxweynuhu xilkiisa qaban karayn marka madaxweyne ma bijiroba marka ka soo qaad inuu yahay midaan xilka qaban karayn oo kale aadan cabdulle marka ra'iisul baarlamaankii ahaa afayeenkii baarlamaanka ahaa ba ku dhawaaqay xornimo 12kii markay miri dhaaftay 30kii June markay miri dhaaftay ku dhawaaqay xornimadii Koonfureed daqiiqada yar kadib aadan cabdulle wuxuu ku dhawaaqay oo matalayay madaxweynihii oo markaa maqan in Israaciil ku dhawaaqay Koonfur iyo Waqooyi oo xildhibaanadii labada aqal oo markaa sida ku midoobayna ay ku ogolaadeen ama ku approve gareeyeen sacabtun iyo istaag saas ku dhamaaday markaa Israaciil haynoo dambe hadda ma soo qawaanintay waxaan kaasi aniga inta la siiyay waa inta ka baxay oo salaamantii